أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين وان idin salaamo umada Soomaaliyeed meel kasta adduunka ka joogtaan waan idin salaamayaa si sharaf iyo karaamo iyo ciise ay ku dhahan tahay idin salaamayaa dhammaantiin insha Allah wax yar baan hagaajisanayaa hal shay garayo wax yar baan hagaajisanayaa kadib barnaamijka iyo wixii wax badan baa idinka dambeeyay intii aynu kala maqnayn marka taas aan rabaa inaan la wadaago insha Allah maanta waxaan soo xasuustay heestii dulmi diido dulmi doonaan aragne dulmi diido dulmi doonaan aragne hees hadii ay la xasuusto hala sheer gareeya cadowga hala ii jabiyo cadowga yaan la ii jabin raalihaada cadowga yaan la ii jabin dad cadowaan ishaynaayo anu ad ogtiin waxaan ahay fanaan qaran fanaan Soomaaliyeed qabiil ma ihi waxaan ahay fanaan qaran fanaan Soomaaliyeed baan xagaasna ka waxaan ku aftirsadaa qaran fahmaysan qabiil kuma aftirsado marka hala sheer gareeyo wax yar baan hagaagsanayaa si fiican loo sii sheer gareeyo haddaan hagaagsaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقرأ لهذا وحبايا dhammaantood salaamaya intaan live ku jiro bilisyan la soo wicin ama wasiiraha ama xildhibaanaha waxa doontaa hay soo wicin anigu hawshan taata sida u dhacday baa u dhacday inaan ka tanaasulana ma rabo inaan cid la heshiiyana ma rabo faraha laga qaado cid arinta inta soo wada igala hadli karta ma laha bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaantiin horta ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dadka hadda daawanay waan salaamaya dad badan oo idin kamid ah lama socon wixii maanta dhacay wixii hadda intii markaan live ku jiray wixii idinka dambeeyay intiina qofna ma oga intaan live ku jiro markii laga reebo inaan xanaaqo lagama yaabano mana doonayo in aan si gaar meel aan u taabto xanaf leh iga raali ahaada laakiin idinkana waxaan idinka codsanayaa dulmiga qofka la dulmay oo dulmanaha garab siiya qofka wax dulmiyaha taageerina macnaheedu ma aha inaan aniga taageera idin leeyahay aniga ila jira inaad leeyahay laakiin mar walba waa inaad taas sameeysan Soomaalidu wuxuu ilaahay tawfiiqdan noo garamarsiyo waxa weeyaan waligan iyo allahan qofka la dulmiyo garab mas qofka dulmanaha waan ka helinaa wallahi way dhacdaa mar kasta hadda ma aha marar badan bay dhacdaa bismillaahir rahmaanir rahiim markuu waxaan rabaa barnaamijkayga inaan guda galo meeshaas in maanta lagu bahdiliyaa ka dambeeyay yaa mas'uulka aha number 1 horta meeshaas maanta in lagu bahdilana ahlaaba ku ka oo anoo gurigeyga iska jiifay wacay gurigeyga anoo jiifa xafladda kaale number 1 isagii Khadiijana way sugaayeen asagii Khadiija diiriyeen wasiirad ku sheegta waxaan ummadda u sheegayaa waa laba wajiile waxay adeegsataa awoodeeda waxay adeegsataa xildhibaanada iyo xasaanadeeda adeegsataa waana beenaley khasisada sababta idin sheegaya maanta hadda waxaa socda shir dhalinyarada la leeyahay
shirka dhalinyarada la leeyahay waa lagu afduubay dhalinyarada xataa speech lama siin intaan meesha taagnaa tusaale aan idiin sheegayaa bal aad ugu fiirsada hadalkayga aniga ma aha nin speech kama rab cid kalena ma taageerayo waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheego dulmiga maanta laygu sameynayay anigu waxaa la yidhi milkiilayaasha dalka anu maxaan ahay milkiilayaasha maxaan ahay anigu marka milkiilayaasha dalka mihi dhalinyarada waddanka iskale mihi xasan cali khayre wasaaraha fariintan aniga xasan cali khayre 10 jeer baan ballanay ragga asaga la joogo way diideen inaan la kulmo si special aan ula hadlay fariin baan u diray way diideen yacni tusaale idiin sheegayaa ninaan saaxiibanahay baa wuxuu ii soo qoray xasan cali khayre maxaad ugu sheegi weyday u dhihi weyday arrintaasaa dhacday waxaan ku idhi xasan cali khayre anigu ma rabo inaan bartokoolka ku ciyaaro dan gaarana kama lihi mana doonayaan ku idhi anigu inaan waxyaabahaas hadda aan waxeeyo ma doonayo sababtaan idiin sheegayaa wasiirad khadiija shirka waxaa loo qabanaya dhalinyarada soomaaliyeed soo maa ha soo haman anigu maxaana marka dhalinyarada soomaliya markii fanaannimo laga soo tago waxay aad in laygu ixtiraamo fanaannimadeedii qaranka soomaaliya fanaanidu war haadhe 2 saacadood oo kaamila waa hobalada waa beri banaanka lagu bahdilayo taagneeyeen ayaga xataa waad weydiin kartaan banaanka lagu celinayay markii la idhahay fanaaniintii orodoo maxaa la sii sheergaraya ilaahay baa idinku dhaarshay markii la anigoo gurigayga jib horta waxaan rabaa kow ma rabo dulmi say wax u dhacan maan rabaa inaan idiin sheego aniga xafladaas waan soo wicina qabanqaabadeedana waan ogaa markaan idin leeyahay aniga anoo saaka iska hurda amin duhurkii waxay soo wacay nimcan hilaac soo wuxuu yidhi cabdiow meel baan jiraa bal u fiirsa hadalkaas waa beentii qofka aniga dhaliilsan nimcaha soo weydiye meel baan jiraa walaalow qoladii hobalada waa beri oo banaanka lagu haystaayo orado xafladda intaad tagto qoladaas xaree waayahay walaalo baan ku ihi gaarigaygan qaatay xafladdii waan tegey waan tegey ma rumaysanaysaan saaka markaan xilligaas aan hurdada ka soo kacay hadda markaan 1 saac idin dhahay ilay baan soo galayaabaa qado iyo waxaan cunay igu horreysay intaasoo dhan xafladdii baan taagnaa meesha stagekaan taagnaa dhalinyarada soomaaliyeed oo xafladda joogtay iyo dadka live-ka daawanaya kulli way iga wada dhaxarkayeen meesha inaan joogay oon meesha taagnaa way u wada jeedeen good waxaa dhacday marka xafladda markaan tegey oo meesha stageka ahayd nimcaan oo hawshii dhacday kooxdii adigu wixii waan xaroonay alcamuum ma raba inaan sii kala qaado gudihii waan gallay gudihii markaanu gallay meesha stagekaan tegey waxaan ku idhi stage hala sii sheergareeyo livekan madaxda soomaaliya dadka soomaaliyeedna hala sii gaadhsiiyo waddanka kadaata dulmi baa ka jiro dulmiga ka jira waxay tahay waxa weeyaan awoodda qofku hayo dadka waa lagu ciqaabaa shacabka ciqaab baa lagu marsiiyaa qofka asagoo title iyo mas-uuliyad adeegsanaya buu qofka uu arko inuu ka awood badan yahay ama uu ka xasaanad badan yahay wuu ciqaabaa tusaale aan idiin sheegayaa meesha markay saas u dhacday oon meesha tegey nimco wuxuu yihi kooxdan soo xareynaya gabdhihii barnaamijka daadihinaya dadka cusub baan u sheegaya gabdhihii barnaamijka iyo gabadhii barnaamijka daadihinaya waan wada aqaanaa hebel baan idin dhihi karaa dadka meesha jooga anu qof aanan garanayna haba yaraatee ma jirto mid baan u garanayaa dadka meesha joogay waa la igu soo dhawey microfoonka ma rabo inaan kala qaadqaadee khadiijo diiri way soo istaagtay jadwal bay soo qabatay waa beri bay ti awey waa beri baa la yidhi microfoonka laga qayliyo waxaa la yidhi awey nimcan hilaac waa loo yeedhay kooxdiisii iyo asagaba waa loo yeedhay way soo galeen waxaan ku idhi de walaalo intay qoladan isdiyaarinayn dhaantadan adaa fankii mas-uulka adaa ilana yeedheen dhaantadan isxilqaan oo wadaniyadda aan ugu talagalay dalka iyo dadka iyo dhalinyarada aan ugu talagalay aan qaada baan ku idhi khadiijaa kuu diidan aniga maxaan sameeyaa baan igu yidhi khadiijaa kuu diidan aniga marka su-aal baan isweydiiyey ninaan saaxiibo nahay baan u diray nin la taliyaasha ra-iisul wasaaraha ma raba inaan magaciisa aan message u diray waxaan ku idhi walaalow khadiija saasay leedahay dhaantada asaga xataa u dhageystay maxaan sameeyaa sug buuhi anaa la hadlaye dad warbaahinta ka mid ah xafiiska ra-isul wasaarahan haddana u sheegay waxaan ku idhi aan maxaa la dhahayay dhaantadan aniga rabo barnaamijka hala sii sheergaray baan ugu talagalaye ma qaadi karaa islaantuna way ii diidantay maxaan sameeya baleed ugu fiirso waa intaanan masraxa wuxuu yidhi aniga ma garanayo naagtan makhaayadda ayadoo u shidan tahay ayadaa wadata anugu ma garanayo waxaan sameeyo stagekii baan u laabtay wallaahi oo waa bilaahi oo waa tallaahi biyahaas waataan aan cabay waataan ku go-an way soo istaagtay makhraatina dhalinyarada soomaaliya iyo dadkii meesha joogay iyo dadkii iga dalbaday inaan dhaantadaas u qaado kulligood goobjoog bay ahaayeen way sheegi karaan wayna arkayeen makhraati bay kaaheen
qaarkood nus shakhsiyan bay hadda ila soo xariireen waxay dhahan cabdi dhaanto siday kula dhaqantay khadiija apologies anaga ka sinayna dhahan shakhsiyadana ka sinayna sababtu waxay tahay waxay dhahan shirkan waxa shi dhalinyaro Soomaaliyeed si hadii loo firay fanaan Soomaaliyeed baa tahay xaq baad waxaad meeshan ku leedahay inaad wacyi gelintaada iyo wadaniyadaada dhalinyaradan taada gobolada ka kala yimid inaad la sheer garayso oo la qaybsato waa waxaad xaq u leedahay waana arrin waajib qaran kuga walaal dhib malan ku dhahay anigu microphone xiiso uma qabo hadday heestaan noqoto 54 dawladood 58 dawladood oo madaxweyne farmaajo cali masaarkiisiya oo adduunka dhan maqraati ka yahay baan soo istaagon ka heesay yani waa masrax hadii loo baahan yahay hadii masrax loo baahan yahay هلا شركري حدي مسرح لو بهنياي ماشي حسن كسويسي لكن كلمه مهمه waxay dhaantadan cusub isxilqaan oo wadanka iyo dadka iyo dalka ugu tala galay inaan dadka iyo dalka inaan message ahaan dadkan aan ula wadaago khadiija diiriye way soo istaagtay intay soo istaagtay bay tiri cabdi ka deg masrax stage iiga deg waxaan ku oran maamul maxaa khaldan wala aad ugu fiirsa hadalkaas maxaa khaldan qof wasiiraatay xildhibaanad baa tahay nimcaan waag taagno maqlaay dadkii wiilashii qalabka joogay way maqlayeen dadkii kale oo meesha joogay ayagana way maqlayeen waxaan sheegay wax been kuma jiraan waxaan ku oray neefsay wax jiraan islaantan adaa isku fiicantiina walaalow la hadal baan ku oray astaghfirullah la hadal baan ku oray walaalow wuxuu yiri islaantan programka iyada wadata hadhow baan la hadlayaa sug waa yahay baan ku oray haddana way soo saartay waxay tiri cabdi ka deg bay tiri masrax والله wax kale imayna dhacay cabdi dhaanto masraxa ka deg bay tiri waxaan ku bal waaya taleefan ma jaajiriga jiraan qaato ha qaadanna ka deg bay tiri anigoo ka duulaya sharaftayda iyo sumcadayda ma aanan isku dayin islaantaas inaan la qabsado oo la tirsado madaxda hortooda ma arkaan wasaarihii gudoomiyihii gobolka inayna arkaan raali kama nahayn dhalinyarada meesha joogtay oo taageerayaashayda inay ayagana ka xumaadaan raali kama nahayn oo inay arkaan sida la ila dhaqmay intay arkaan meesha buu ka dhalato oo yaani islaanta taata ay ka soo horjeedsadaan raali kama nahayn hala si shar gareeyo walaalayaal hala la si gaarsiiyo ma fahamteen raali kama nahayn balaad ugu fiirso shibaan idhi waayahay baan ku wada habar waan degaya waxay raacisay halkan ma aha jigjiga bay ku tiri dhaantana loogama baahne gowt jigjiga bay tiri oo halkaas dhaantada ku soo bandhig balaad ugu fiirso hadalkaas meel ku qorta ma aha this no jigjiga bay ku tiri aan loogama baahna dhaanto markaas waxaan ku iri anigu waxaan ku iri jigjigana may fanaan Soomaaliyeed baan ahay waxaan ku iri hadalka aad leedahay habar iska sax masraxan waan ka degay balaad ugu fiirso hadalkaas masraxan waan ka degay walaalayaal waxaan rabaa inaan idin la wadaago ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre tusaale idin sheegaya wuxuu yiri milkiilayaasha dalka tiin anigu maxaan ahay marka milkiilayaasha dalka kamid ma yihiin anigu dhalinyarada kamid ma yihiin fanka Soomaaliyeed kamid ma yihiin dadka suugaantooda la dhageysta kamid ma yihiin heesaha meesha lagu soo bandhigay ayadaa sameysay murti ma lahayn wax murti ma lahayn Xasan Cali Khayre lagu amaanayay dalkaay 3 sano soo haysay haddana sii hay waliga xilkaay wax saas ka hadlayeen balaad ugu fiirso waa dhageysan kartaan haddii aniga aad waxa laga yaabaa hadda inaad aniga daalaci raacsantiin oo dhihi kartaan ninkan taada muxuu la qeylqeylinayaa balaad ugu fiirso waxa laga yaabaa hadda inaad saas leediin laakiin waxaan idin sheegayaa waxaad sida la moodayo mise sida ay tahay tusaale idin sheegay dhalinyaro Soomaaliyeed baa soo waceen waxay dhahan wasiirad Khadiija dadka ay meesha ay isugu yeertay ma dhalinyaro Soomaaliyeed ma mataleen waa dad ayada soo qortay waxaa jiraan ururo dhalinyaro organization oo xamar ka dhisan oo wasaaradda ka diiwaan gashan lacag baa laga qaaday lama casuumin lacag baa laga qaaday dib aad ogaan kartaan lacag baa laga qaaday lama casuumin Soomaaliya garan afgobaadsi iyo been iyo propaganda iyo qaraac bay meesha la soo istaagtay Soomaaliya garan aniga sharaftayda iyo wax walba maanta ay soo gaareen meeshaas waxa mas'uulka nimcaan la waayo ninka casuumay iska Soomaa fankan asaas ka laha maaha inaad jilacsanaata de raga ilaahay xaniyo ku yeelan nin raga fanka qofku markuu mas'uul ka yahay anigu waan ogahay nimcaan waa ninaan saaxiibana waa walaalkay aad baan saaxiibo isku nahay kaloos baan waan isku dhownahay حتى ماشي هذا أجاسمه وبلده وبرو جوجو ده أقامكم منا ما أننا واحد كاني نكلا ده يا ماريو أبتو قرابين يا هبر خديجة كشقين الله كانوا وبلده وبري
ayagaa mas-uulka oo meesha keenay right si fiican baad ifahmaysan soo ma ayagaa keenay maantana dee in meesha lagu bahdila asaga ma mas-uulka aha fankan asaa mas-uulka ah soomaan ma aha fiiri awooddaada inuu ilaahay kaa qariya maaha fanka markaad mas-uul ka tahay waa in anigoo cabdi dhaantaha qofka maanta wuu dhihi kara sidaas iyo sidaas khaladkaasaan jiraan ma aha dee anigu afar soo laba xinood ragga male afar baan leehay dee mana cabsanayo halkaan lifeka kasoo tumi jiray gurigaan waa guri kale ma ahayn asagii maan haddana deganahay dadka soo qorayo waa lagu dilayaa iyo waxbaa lagu gaadhsiinaya waa inaad ogaataan anigu waxaan ahay fiiri waxaan rabaa messagekeyga iyo fariinteedan inaydu sii sheergaraan oo idinla wadaagtaan madaxda qaranka markaan idin leeyahay waad ogtihiin maanta ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha dadka inay ayaga fiican yihiin dad maafiya inay ka sokeeyaan waad ogtihiin oo maafiya bal maafiya inay ka sokeeyaan waad ogtihiin ani nin ra-iisul wasaaraha kamid a ee ragga la shaqeeya wallaahi biyahaasaan ku dhintaa baa wuxuu yidhi waxaan ku niyo ra-iisul wasaarahan u baahana arrin aniga bareybadiya inaan u tagoon kala hadlo ilana fanaan soomaaliyeed fanaaniinta kale waa u qaabila waa u tagi jireen fanaaniin badan buu u tegay soo ma anigan xaq baan nin wadankii jooga oo wadanka hawlaha ka jira shaqooyinka ka jira ka qayb qaatana dan waan ka yeelan karaa soo ma sax ilana dadku wasaaraha u yahay ama madaxda u yahay baan kamid ahay soo ma sax baan kamid ahay ilaa cid kale may waa haddii sida saxda loo dhiga haddii khalad loo dhigana kamid maba ihiba si kale haddii loo dhigo hala sii sheer gareeya lifekaygan wuxuu igu yidhi xasan cali khayre ma waxaad wax ka weyday daarood maad wax ka weyday buu igu yidhi markaasaan ku uri war anigu fanaan baan ahay nin qabiil mahi bal walaalow ceeb weyan waxaas iska daa farmaajo tag buu yihi iska daa xasan cali khayre waa taqaanaan hebel sawirkiisa haddaan idinla wadaago magaciisa haddaan idinla wado kulligii waad garanaysaan ragga howlwadeenada ra-iisul wasaaraha weeyaan bal ka waran waa xafiiskii dadka laga maamulayo dadweynaha dadka sidaas aaminsan baa qaranka ka shaqeynaya haddii la i weydiiyo si saxa la ii weydiiyo waan ka jawaabayaa hebel waan dhahayaa ma fahmaysaan dadka messageka qaldan gudbinaya aniga beenta iga faafinay kamid buu yahay wuxuu yihi orodoo farmaajo u tag buu yihi farmaajo orodoo u tag markaasa waxaan ku ihi aniga maadi taqaanaa waan isbaray runtaan idiin sheegaya waan isbaray anigu nin noocaasaan ku ihi la igama maqal dadkiina ni daawanaya 300 iyo 200 hadda daawanaya maanta waad ogtihiin inaanan anigu ahayn shaksi qabiil oo ololeeya markii laga tago kaftanka iyo riwaayadda iyo waxyaabaha sida kaftanka ama kama iga dhaca marka laga tago waad ogtihiin xamar iyadoo xabad iyo dagaal iyo wax walba ka socdo inaan idiin soo gudbiyo image fiican oo ah dalkiina inaad kusoo laabataan oo dhisataan laakiin dulmi iyo waxaan ku noolahay iyo caqabad iyo waxaan ku noolahay rafaad waan idiin sheegayaa maaha markii dan layga leeyahay in laysoo wacde anigu ma baahni haddoo kale in laysoo waco ma fahmaysaan ninka xafiiska prime ministerka ka shaqeeya oo idhahayo orodoo xasan cali khayra maxaa ladhahay farmaajo daaroode u tag maxaad ka sugaysaan tusaale idiin sheegaya yani simbal waxaan rabaa anu ina qabiil ma doonayo laakiin waxaan rabaa inaan wax idin fahamsiiyo maxaad ka sugaysaan yani qofkaas capacitygiisa intee leegyahay taagan yahay magaciisa waan idiin sheegaya waa taqaanaan xataa habeenka iyo waktiga iyo dadka ila taagnaa way wada joogaan waa la garanayaa hebel hala sheergaray hana la gaadhsiiya fariintan dadka waxaas ka shaqeynaya qabiilka aaminsan waa laga gudba xilliga qabiilka dhalinyarada soomaaliyeed dadkii meesha fadhiyay iyo dadka aniga aan wax la barto waxna lasoo bartay ma aha dad qabiil aaminsan xamar ma aha meel qabiil laga yaqaano laakiin dadka ina hogaamiya haddii 4.5 iyo qabiil ay ku dhisan yihiin annaga dhalinyarada xilligaas waan ka gudubnay caqabad kasta iyo rafaad kasta dadka soomaaliyeed ay maraan waa laga gudbi doonaa hadday qabiil aaminsan yihiin nin aan qabiil aaminsanayn baa imaanaya kuwana waan la shaqeynaa kuwa soo socdan waan la shaqeynaa bala hadalkayga waa inaad si fiican u fahamtaan meesha aan ka hadlayo balaad ugu fiirsada aniga tusaale idiin sheegaya ma rabo inaan dadku xadgudbo shacabka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waan ognahay khadiijo diire waxay tahay waad ogtihiin gudoomiyaha gobolka abti waxay hadda abtina gudoomiyaha gobolka waxaan rabaa inaan u sheego Cumar Finish islaantaas maafiyada inuu iska jiro hadda anu sheegayaa waa inay ishiisu dheeraato khadiijo waa maafiyo waa inuu iska ilaaliyaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waa nin sharaf leh Cumar Finish waa nin dadkan dalka usoo halgama islaantaas ha iska ilaaliya dabanadii qolayso khadiijo tiiriye weji ba isticmaashaa balaad ugu fiirso naag weji isticmaalayso weeyaan naag diin haysata maaha inay kufta ma xataa uma malaynaa salaada inay tukato dee ma malaynaayo I don't think inay arrintaas jirto waayo qof mas-uul oo xildhibaan oo xasaanad leh
intuu soo istaago fan ma soo dhex galeen oo sharaftiisii karaamadiisa ilaalinaya ma fahmi inay dhimanayso say ogtahay way u ogeyd cabdidhaanto markay u diidaysa meesha inay balaaya ka raacayso madaxda qaranka soomaaliyeed baan rabaa marka inaan fariin u diro fariintaydaas waxay tahay sidaas ka daaya walaalayaal sidaas ka daaya anagu dhalinyarada dadkaad hogaamisaan baan kamid a dadka lama kala saaro dadka idinku dhex jiro qabiilka aaminsanna looma baahna inay dadkaas oo kale ay shaqo sii wadaan waan ognahay inaydaa xumayn oo dad fiicantiin laakiin dad maa fiica idinka hooseeyaan oo idinla shaqeeyaan waan ognahay taas idinkuma nacayno laakiin jaaniska annaga ayaan sugaynaa marka waxaa weeyaan dadka qaar waxay soo qari aan heeso walaal anu haddaan heeso hataa xaq baan u lehay fanaan baan ahay dadkaas soomaaliyeed ee shacbigaas soomaaliyeed inaan sugaanteeda la wadaago xaq baan u lehay ma ahan wax waana waajib igu qotoma balaad ugu fiirsada aniga ma aha in lagugu shaqaysto dee isticmaar inaad noqoto sida gondobka la gashanayo oo one time one use ma aha inaad noqoto gondob ma noqonayo anigu dee ma noqonayo midka gondobka la isticmaalayo la gashta ma noqonayo anigu hal mar baa la isticmaalaa soo ma aniga saas ma ihi wala fiirso khadiijo diri waxay waxaa jira koox la yidhaha danan oo fanaaniina oo waxaa jiraan ayada ay heese u samayn jirtay way ku shaqaysatay masraxay kusoo saartay hadda waxay samaysay hobelada waaberi qayb kamid a nimcaan iyo tiim isku fiican yihin bay samaysatay ayagay wadataa anigu weliga meela joogtana kama heesayo dib oo dameeyana ugama heesayo inaan habartaas u heesana ma rabo islaantaas haska mirqaanto mirqaankeeda iyo hawsheeda iska wadato anuu ma rabo laakiin inay dhalinyarada soomaaliyeed tiraada shir baan u qabanayaa dhalinyaradiina ay kala saarto oo si khaldan iyo qabiil iyo wax kale ay maxaa la dhahayay ay adeegsato sax maaha dadka soo qoraya khadiijo diiri waa maamo hooyada oo kalea hadday tahay maxay iga xishoon weyday wiilay dheli kartaan ahay wiilay dheli karto way dheli kartaa maxay iga xishoon weyday walaalayaal halasii fariintan halasii sheergareeyo waxaan rabaa wax walbo inaan idinla wadaago go-aan waxaan ka gaadho on idiin sheegay hadda kahor life dambe inaanan soo gelayn dad dambena aanan la dagaalan fadhiyey ra-iisul wasaaraha fadhiyey golihiisa wasiirada fadhiyey labada aqalo baarlamaanka iyo aqalka sanadkaa fadhiyey kulli waa la wada arkay laakiin arrintan inay si hoose ula socdaan ma umalaynaayo haddii ay xitaa ay ogaayeen kolley dee ma laga yaabin inay saas waan damcay ra-iisul wasaaraha inaan la wadaagon ku dhahdo adeerow sidaasaa jirto dadka aad matasho ra-isul wasaaraha tahay baan kamid ah dhalinyaradana aad rabto inaad u khudbayso ayaan kamid ah nin waliba taalantigiisa iyo wuxuu ilaahay si gaara uu hibe u siiyey ayuu muxuu lahay shirkan iyo dhalinyarada iyo wacyigelinka dalka uga qayb qaadanaya balaad uga fiirso wacyigelinta dalka uga qayb qaadanaya anigu wacyigelinta dalka waxaan rabaa inaan uga qayb qaato wacyigelinta dalka inaan uga qayb qaato suugaanteyda ilana taasaan hibo u leeyahay balaad uga fiirso anigu alxamdulilah nolol fiican baan ku jiraa ma ahan anigu inaan lacag u baahanahay lagama weynayo ma hadda jeebkayga lacag haddii laga fiiriyo ma fahmaysaan laakiin wallaahi oo tuma wallaahi xasan cali khayre ha la gaadhsiiyo anigu khalad kasta iyo dulmi qof lagu fiirsanayo ma aqbalayo soomuuna lahayn ma aqbalayo inay nacabsi geliyaan qabqablayaal iyo maxaa lahay dad mucaarada oo qawlaysataa anigana ma aqbalayo khadiijo oo kale ma aqbali doono habar khadiijo diiri oo kale ma aqbali doono iyo dad maafiya oo iyadoo la halmaano ma aqbali doono haddaan u sheegaya xilligii la dhihi jiray cabdidhaanto this is no jigjiga ma aha waa gobol soomaaliyeed ma diidayo wuxuu la yidhahda cabdidhaanto jigjiga oo laygu takooro for example ma diidayo male soo maha waxaan ahayna ma garanayo soo maha ma diidayo raalli baan ka ahay laakiin inaan ka jawaabo oo dadka xunaan idinla wadaago ninka xafiiskii ra-isul wasaaraha qaranka ka shaqeynaya ku dhaha orda farmaajo daarooda u tag ka waran waa hebel waad garanaysaan hadday xaaladdu sii xumaatana waaba idinla wadaagi doonaba ha ka welwelina waan idinla wadaagi doonaa ballan ilahan ka qaaday ma fahmaysaan ma aha inaan qaraarsan aniga xasan cali khare 10 jeer maantaan message kala hadlo ila ballamay la ii diiday oo maxaa la dhalinyaro asaga la shaqeeya ay ii diideen weligeena kama dacwoon live-na kama soo galin oo la yidhi orado maxaa la farmaajo u tag bal fiirso 10 jeer baa la yidhi laakiin ma doonayo anu hadda inaan arrintaas aan arrimahan oo kale inaan uga faa'iideysto ma doonayo diyaarna uma
نيو شيخ شريف ثم والله ثم والله marka waan idin ogahay dhalinyarada Soomaaliyeed markii laga reebo dad yar oo qurbaha jooga oo qabiilku madax uga jiro marka laga reebo dhalinyarada Soomaaliyeed oo xamar jooga anigu waligay yaalaahay xamar waxaan joogaa 12 sano mise 12 sano baan magaalada Muqdisho ku noolahay noloshayda intaan iskuulka dhiganayay intaan jaamacadda dhiganayay waligay maanan arkin qof leeyahay Cabdi Dhaanto reerkee tahay qof dhalinyaro sharafta dhalinyarada xamar ay leeyihiin markastoo meel tagana xamar wax laga sheegan waxaan ku difaaca dadka xamar dhalinyarada xamar joogan qabiil ma yaqaanaan markasta saasaan dhaha way ka bogsadeen qabiil xilligii dhalinyarada Soomaaliyeed lagu waxaynay ma yaqaanaan laakiin waan ognahay systemka dawladdeena inuu ku dhisan yahay 4.5 ma diidi karno waa qabiil shaqada la soo geeyay waxaan rabaa mar kale digniino inaan bixiyo islaantaas maafiyada gudoomiyaha gobolka ha soo jiro ninka la Umar Finish ha iska jiro waa maafiyo naagtaas waa maafiyo waan idin sheegay ma fahmaysaa ha iska jiro sababtaan u leeyahay jirto anigu weligay yaallahay nin wasiir ama xildhibaan oo intaan live soo gal ku dhigan maartay maya Soomaha laakiin kursiga dadka ku fadhiyo qabiilka adeegsanaya naag wasiirada oo intay state-ka xildhibaanada xasaanada intay soo baxday state-ka fanaan ugu tagayso dhaayay orada iga deg meeshan jigjiga maana ma weligii ma aragteen taas oo kale hadalka ilaa aanan ka seexanin oo calooshayda ilaa hadda aanan ka bogsanin waa eraygaas halkan jigjiga ma ahane dhaantana loogama baahna ba igu tiri يا الحمر قوليستا شرف هذي والله حنا أقولاننا ظلمك إرياس ما اللو بدونه ولينا ما اللو بدونه ما فهمتين مو اللو بدونه ضدك يسوي عينيه يقرر على ضدك يسوي عين ما اللو بدونه وايو وحي كقاضي إلى هذا خديجة ديري أنا وحن كقاضي لهذا الشيخ فهميسا aniga ma doonayo waxyaabaha qaar inaan ku hadlo waxaan raali gelin buuxda ka bixinayaa erayo galabta markaan live ku jiro aan xanaaqsanaa galabta markaan live ku jiro hotelkay ku jirtay hoostiisu gaarigaygu ku jiray gaarigaygu meesha ku jiray aan live ugu jiro wallahi been idin ma sheegayo haddana gurigaygaan imid aan cabsida ilaahay ahayn mar hore waad ogeydeen 2017kii dadkii ila socday ogyihiin cabsida ilaahay ahayn uma dhiman doono insha Allah taala cabsida ilaahay ma dhiman doona cabsi bini aadam uma dhiman doono samada garan uma dhiman doono sharaf iyo karaamo dhalinyarada xamar guuleysta sharaf aad leedihiin way ka xumaadeen maanta dhalinyaradii meesha jooga aad ba uga xumaadeen barnaankayga wada daba yimideen kulligood qaar baa ooyay yiri Cabdi Raallahow waan ka xunnahay waxaan oo kale wax walba indhaha nagaan u jeedno waan arkaynay raalli noqo way ku dhaheen waayahan koori waayahay waan koori wax kale ma dhihin waayahan koori raalli baan kaan koori waana idin wataa baan koori kuwa xitaa Facebook ku soo qoray ayada taageersana waxaan koori raalli baan ku hay inaad aniga wax ka soo sheegtaan fahmaysa laakiin waxaan idin sheegayaa dhalinyarada laga gobolada ka keentay oo ayada ay keensanto meesha ku wada jiray sharaf iyo karaam ay leeyihiin dulqaad adag bay muujiyeen saacado badan bay maanta meesha ku jireen ya ما فهمتين raalli ahaada aan nafta ku saxday marka arrimahaas oo dhan baa walaalayaal jira arrinta marka halkaas marayso waxaa idin sheegayaa Khadiijo agaasimaheedii maaliyadda dawus dhiibay kanadu iska dhiibay seminar baa loo diray muna soo laaban ha soo noqon bay ku tiri wala fiirso agaasimaheedii maaliyadda soo ogaada qof aad message aan igu soo diray kanadu iska dhiibay Canada ma fahmaysaa Canada iska dhiibay taas laakiin aniga ima qusayso wixii dhiibay wixii wasaaradda ka shaqeeya aniga ima qusayaan laakiin ayada say la dhaqantay qusaysa aniga waana socon doonaa live kan saanu socon doonaa gaf bay iga gashay way ii gaftay Khadiija Deeriye way ii gaftay
makhaayaddaas hadday kuu shidan tahay annagana makhaayadana noo shidan makhaayaddaas hadday kuu shidan tahay annagana makhaayadana noo shidan waa ka xuma anigu dee anigu caawa intaan awooda intaan xaggan ka taga xasan cali khayr intaan u tago aan dhihi karo waa dulmigaasa laygu sameeyey meli soo ma ilana waxaa ka sokeeya raggii yidhi orodoo farmaajoad aad isku reeratihiin u tag ninkaas aqoon imuun lahayn raggaasaa jooga soo ma raggii yidhi orod u tag ma farmaajoa ku deeqi waayo dadkaasaa meesha jooga dadkaas ayaa meesha jooga waan ka rajo dhiga anigu ma fahmaysaa laakiin anigu cidna ma raba inaan taagareeyo fankayga iyo hawlahayga ma raba inaan ka baxo qofkii fankayga iyo hawlahayga igu yimaadana waan iska dhicinaya waan iska dhicinaya ilma adeeryaal walaalayaal hala sheer gareeyo anigu waxaan diidanahay waa dulmi un qof idinkaydin kamid a ilmihiisa hooyadii waalidkii in la dulmiyo cidna raalli kama sidaad idinka aydaa raalli uga ahayn baan aniguna raalli uga ahay sida ayda idinka raalli uga noqoteen in qof la dulmiyo agtiinana wax lagu dulmiyo baana aniguna raalli uga ahayn weligay qof meel lagu dulminayo ma istaagin qof meel lagu dulminayo haddaan arko kumaanan fiirsanin qof la dulminayo haddaan arko kamaanan tegin oo dulmiga kumaanan fiirsan anigana ma jeclin in la dulmiyo waalidkayga xataa weligay imaanaan canaan adduunka canaan baan ugu nacba markaasa islaan iska falalaxda intay soo istaagtay bay tiri cabdi dhaanto ka deg stageka meeshan jigjiga maahane dhaantana loogama baahna orodoo jigjiga aad orodoo aad malo fiirso anigu wax walboona anigaa isu ah haddaan xumaayo haddaan fiicanahay qaran haddaan ku xumaado malo fiirso hadalkaygaas haddaan xumahay iyo haddaan fiicanahay haddii aan qaran ku fiicnaado qabiilka iyo dadkaan ka dhashay baan u fiicanahay runtaan idii sheegayaa waan ogahay maanta wax walba qabiil iyo qabyaalad bay noqdeen anigu qabiil waxba kumaana noqonin qabyaaladna waxba kumaana noqonin nin dhalinyaro soomaaliyeed oo khaasatan xamar dhalinyaradaas iyo dadkaas bulshadaas iskala noolaa oo dadkaas fahmay baan ahaa dhalinyaradaas iskala noolaa haddana ayagaan iskala noolaanaya wax iskala barta iskala jaafaysa iskala alaalaysta hawsheeda loo wata haddana hawsheedaan iska wadanaya ma ihi qof hadda u joogsanayo khadiijadeed iyo hadalay tiri maxaan dhahay ka awooda badan oo kalaan dheeraysan baanan waxba ka maqlaynin ayada oo maxaa la dhahay islaan miskiin oo dadka laga tirada badan yahayba maxaad iska badaaba ayada taas micno weyn kuma fadhido ima sii kuleylinaya dadka laakiin waa inaan la wadaago meesha waxay ku hayso inaan idin la wadaago taleefano diri doonaa kulligood waan ka jawaabi doonaa qof kasta oo ii maleeya inaan dulmi wadana wuu ila hadli karaa wuxuuna idhihi karaa waxaasaa dulmiday waxaasaana samaysa waad khaldan tahay waad idhihi kartaan laakiin ayadana khaladkeeda u sheega haddii aad dad soomaaliyeed oo xalaal aatiin arrintaas aan ka arko social media islaantaasna ha aragto inay waxay igu sameynayso waxay khalad aha inay khalad ahaayeen waa la wada maqlayay marka saasi dhahaysay nimcaan hilaac ma maqlayay kooxihii fanaaniinta hobelada waa beri way maqlayeen qoladii farsamada meesha fadhiyay way maqlayeen dadka xafladda fadhiyayna makhraati bay ka ahaayeen inaan meesha taagnaa in xataa magacayga la sheegay oo la ii yeedhay oo la yidhi hobeladii waa beri xataa ma joogto banaanka ku maqayna cabdi dhaanta loo yeedhayaa way maqlay laakiin anigu iyada uma qabanayo ma ihi qof waxyaabahaasi wax lamida ay xadidaan cabdi dhaantu waa kaa taqiineen qof kale maaha layma bedelin 2 jeerna layma abuurin weligay wax aan go-aansaday kama laaban mana istaajin maaha inaan isfaaninayo laakiin waxaan ahay waa inaad ogaataan cabdi dhaantu qof caga juglayn iyo been iyo orada meeshan ka tag lagu celinayo ma aha ma ihi keliyo nin fanaana aniga ma ihi anigu qof wax bartaanahay nin anshaxa bini aadantinimada xushmada qofka kaa weyn iyo ixtiraamka qofku kugu lehay nin fahamsan oo aqoon ahaan wax u fahamsan baana ma ihi laakiin qof يعني جاهل وحلا وحي أقل جيسة كسر عشيقي مي حاشا وذو أكتين تطبضنا ويقرنا يعني حقه هالشقاوي حقه يا عدالة ده هالشقاس شعب كصومالي أنا مخراتك هذا وأكتين عقبضة الرفات كحمر أنا وجهنا أنا نوضن كنا قاعد ندين سوق بدنا وح روح بدن مخراتبات كتير ودقنا حمر كتير مخراتبات كتير ما لنا وقام صعم قف هذا الكينة ما أنت تايض دماته
baanu meeshan ku ofinayna ama dana kale aan uga tagi doono laakiin waxyaabahaas oo kale ma istaagi doono qof fahamka sidaas ka laakiin maanta qofka aqoonta le maaha ma aha qof xaqa inuu ka gabado especially qofka mas-uulka ya anu fanaan baan Soomaa fanaan Soomaaliyeed baan suugaan ma ka shaqeeya Soomaa meel kasta iyo xaflad kasta waa layla waca Soomaa waa inaan idin sheegay qofka la takoorayo qofka la dulminayo qofka beenta la sheego qofka la dulminayo waa inaan idin la wadaagaa oo idin dhaha qofkan dulmi baa lagu hayaa ee Soomaaliya raalli ahaada qofkan mas-uulka madaxda matala waxaas sameynaya Khadiija Diiri waxaan leeyahay anigu makhaayada wasaaradda kuguma haysto hawshaada wado raalli baan ka ahay raalli أنا كمان كنسن حس على خيرك كنسنتي حس على خيرك وشقيسة أنا حتى يمشي شقيسد كم يمين ما تشتانيك وأيو وحنو قاعدي ما أنت وحنو قاعدي حس على خير مركو ده هيو ملكي ليش ودن كاتي واحد سنة بين تانو قاعد والله بين أنا ودن يرد ما هي دن يرد ملكي ليش ودن كميه ما هي ساسا أي صباح مي أنا ودن يرد إيه ضد كلا صاع الرصد وحلو شيء بس بواحد ملكي ليش الدلك dadka la soo urursaday oo wax loo sheegayo la qoray listiga lagu soo galiyay bas baa waxay milkiilayaasha dadka ma ahan anigu inaan hadda cid gaar aan taageeranay laakiin xuquuqdayda iyo xuquuqda dhalinyarada aniga ila mid ka hadli kale ma raba inaan halkan ka sheego waana anigu dhalinyarada meeshaan kamid ahaa waana matala hatta hadii dhalinyaranimada leeyo qosay waxaan ku mataliyaa kaalinta fanka ayaan ku matalay fan kooxii fankana way joogeen agaasimihii fankii suugaanta hawlada waa bari baa joogay wala fiirso baa joogay ma umalaynaysan waxa soo dhido iga dhacayo haddaan dulma laygu sameynana iga dhici lahaayeen rafaadkaas oo dhan inaan ismarsiin lahaa ma umalaynaysan amay ya waxaan cuna maana waayn waxaan cabo maana waayn guriga VIP dan dhex deganahay gaariga VIP dan wata maana waayn laakiin dhididkaas oo dhan wuxuu iga dhacayaa aad u jeedaan waxa soo dhidi wuxuu iga dhacayaa dulmiga aan indhahayga ku arkay 1 2 3 4 oo madaxda qarankan ay gobdo ka hayeen dulmigaas baan maxal dhahay ka xumaa oo raalli ka ahayn dulmigaas ayaana raalli ka ahayn kulli way daawanayaan fariinteedana way gaari doontaa hana la sii gaarsiiyay hana la share gareeyo mar labaad iyo mar saddexaad wixii gaf oo iga dhacay hay qabanina nin xanaaqsan oo la dulmiyay oo la soocay oo qof xasaanad oo xildhibaan iyo wasiirnimo isku wato uu intuu soo istaagay stage ugu yimid uu soocay baan ahay oo si khaldan ula dhaqmay marka ilmaadeeray walaalayaal dhan kastaba taageer ama cid taageer anigu waxaan dhexdhexaad fanaan baan ahay fankayga xadkiisa xuduudkiisa kama baxayo hana la sii share gareeyo barnaamijkan hala sii share gareeyo kama baxayo laakiin walaalayaal dulmiga Soomaaliyeed dulmiga qofka la dulminayo ee ka wax dulmiyeedu garabka siinaysan iska daay intaas aan rabaa inaan idin sheego bas waan arkay marar badan xataa goobjoog baan ahaa qof wax dulminayo kii dulmanaha ahaa loo heel garab laga siinayo oo kii wax dulmiye garab la siinayo waan arkay anigu aan dhalay baan ahaa codkayga meel kastu gaadayo waan isdifaacaya waxayga waan dhacsanayaa laakiin dad waxa jira intaas aan awoodin صح ما awoodaan waan ognaa hebel waanu aragnaa haddaan rabo inaan ceeb sheego oon ceebo shiro oon rabo inaan ceebo ka shaqeeyo taleefankayga waxa ka buux waa ceeb kumanaan ceebood baa ka buuxan haddaan rabo inaan ceeb sheego iyo dad inaan dhaleeceeyo wax ka sheego laakiin ma doonayo arrimahaas waqti bay ahayd waana joojiyay inaan dhaleecayn iyo ceeb kama yaabano inaan dulmi ka aamuso waxaan idinka ballan qaadayaa arrintan wax walba oo ka soo kordha ballan baan idinka qaadayaa inaan idinla wadaago ballan ilaahay baan idinka qaadayaa taas ballan ilaahay baan idinka qaadayaa waxaan ogaan cabdi dhaantu wuxuu yahayna waa la ogaanayaa bowdadaa la soo garaacanayaa saaxiib huis cabdi dhaantu wuxuu waad ogaanaysaan haddaan kor saas ugu kaa jawaabo celcelaana waad ogaan doontaan kor haddaan kaa jawaayo on maxaa lahay aana ka lisi waasankooda cid alla cidii isku kaydayda aniga inay maxaa lahay programyada howlaha fara gashato marka kulley hawshu saas u dhacday wasiiradaas maanta saasay samaysatay arrintaasna kulley
wayd la socon doontaan wixii kasoo cusboonaada kolleyna dee anigu waxba cabdi dhaanto dad badan baa dibadaha iyo meelo badan oo kala duwan iga soo wacay hayga welwelin anigu saad moodeysaan may waa inaad ogaataan anigu balaayo ma qabo dhibaatana ma jirto cidina qori iguma hayso cidina ima dulmiso cidina maxaa la dhahay ima dulmiso waxaan ka wadaa iguma soo xadgudubto cabsidii hadda aniga aan ka cabsi qabo inay wax soo gaadhaan hadda xilligan ilaa iyo hadda waqtigaan idinla hadlayo inaan wax ma jiraan waxaan hadda dareemayo oon ka cabsi qabo ma jirto cid aan ka cabsi qabo hadda in aniga wax soo gaarsiinayso wixii un qadar rabi mooyeen ma jirto taas laakiin fariintayda gaarsiiya ummadda soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed dadka dulmanayaasha fariintan tadaad hala gaarsiiyo dhalinyarada soomaaliyeed ma aha dad ay khadiijo diiriya soo qorqortay oo ay qol kusoo xareysa maaha dhalinyarada soomaaliyeed 57% boqolkiiba 75 waa dhalinyaro qolka waxaa lagu soo xariyay waad ujeedeen dadka lagu soo xariyay waad ujeedeen soomaa lagu dul khudbadeynayay waad ujeedeen dadkaasoo kale iska jira ma hadli karaan way dulman yihiin annagaa idiin hadlayna adeer don't worry ha ka cabsanina annagaa idiin hadlayno codkiina anaa ku hadli doono insha allah ha ka cabsanina taas hawshana way soconaysaa hadde saan u soconaya dagaalkan ma joogsanayo qofna kuguma qasbayso saaxib haddaad maqal waad iska bixi kartaa qasab kuguma inaad lifekayga daawato de haddaad igu qanacsanayn waad iska bixi kartaa jaw anu maanaa ku qasbaya dadka lifekayga daawanaya qofka ani rabin de iska baxo muxuu lacagta sooga dhamanaya waqtiga anigu dadka soomaaliyeed oo isbedelka doonayaan la hadlaya anigu dadka isbedelka doonaya oo dulmiga diidan baan la hadlayaa marka ciddii iska caytamaysa ciddii hadlayso waa free waxaad rabto waad sheegi kartaa laakiin dadka maskaxdooda saliimka iyo aqligoodu uu shaqeynayo baan la hadlaya anigu cid kale lama hadlayo ma fahamtiin marka aad baan idin salaamayaa hawshu sidaas oo ula soconaysaan meseedkana hala sii faafiyo khayr badan baan idiin rajeynayaa wabilaahi tawfiiq